مالت أحد أوكي أوكي ركز بهذا الوقت أنا سما أوكي مالت سبتيجن كل وشي دونتان إن شاء الله. أوكي ما سنتي واي أوكي طب كيف أديست غديرة نهاري برامجك سعيد سهر نوشكتي دتك هذان ما أركتي نلسو حريران أو دنا عم بوق وكوسو قد بين كرها وقت كان نقطة مركا بريتي يو تلاذ ما لقى بين جاليد الصومالي لكلهم تركبي عاد بانو دنينيا إن المساجد دن على شرقري بوجا ميلها أمد كورسنت هاي كوميونيتي سنتريسكا objective كان ماشوا مي وحيا هايد إن كوسيادية وحي أقونا ليه أمديد أدي مركا إن شاء الله مالنتي شن لح 10 دو بهذان ديار بانو يعني مركا رينكي بي مالنتي هوري هذا حق ماشي كده عادي شسته كورن صومالي كسوق قبش عاد بيوبنديد مركا لو فيري قولك اللقبتي وحو قاضي إلا بقول كرسي waxaan u maleynayaa labadii maalmoodba 100 kursi waa buuxeen ayaan isleeyahay sabtidii iyo xadii marka dadku ma yareen wayna muuqatay in dadku ay aad u xiiseynayeen dhabaantii inay aad u xiiseynayeen dadku waana muuqatay booqashadaada hadda ku aadayso Mareykanka sidii arrimaha kale ku saabsan tahay idin Soomaaliya oo ganacsiga marka dhinacaas iyo Minnesota ma hadii lahayd ilaa Canada inaan u gudbaa laga yaabaa hadii lahayd tan ka dhawaajisayna shirkadahan alla kulantay 700 oo ka soo aruurisay ما كجران معناه كوا يوروب عربها كل ميل بقارد والبواي waxaan jeclahay inaan Soomaalida u sheego Soomaalidu maaha faqri umad faqriya maaha ummadaha ugu hadda liidata dhanka ganacsiga adduunka bal meelo badan oo kamid ah adduunka waa tusaalaha lagu daydo hadda meelo badan oo kamid ah Afrika waxaan ayaa journal madaxweynaha Mozambique uu leeyahay ku daydo Soomaalida dhanka ganacsiga waxa loo ogyahay Uganda dhowr jeer madaxweynaha inuu ka hadlay Soomaalida iyo ganacsiga Afrika iyo meelo badan oo kamid ah adduunka waxaan nahay tusaalaha lagu daydo Soomaalidu waagii hore dhaqaaluhu aad buu yaraa faqri bay hadda faqri maaha aqoon bay yeelatay way aragnimo yeelatay cilmi bay yeelatay dhaqaale samaysay waxa kaliya oo ilaa hadda baraarugayla waa dadka jooga qurbaha iyagana waxaan rajaynayaa in buugaan iyo buugta lamidii ay ka qaadi doonto hadii ay badankeeda leeyahay ee culays ka saaran ay ka qaadi doonto ay ku dhiiran doonaan dadku inay sameeyaan ganacsi mustaqbal leh oo meel fiican gaarsiiya hadii la hadmo qof baa soo qoray saldhigaaga ma London ma xagee macnaha London saldhigaaga waa Leicester magaalo la yiraahdo oo u dhow Birmingham weeyaan oo ku taal gobolada dhexe UK dhinacaas iyo London marka qofku u baahdana uu kala soo xiriir karaa meel walba Leicester marka xafiiska ku leedahay aad barnaamijka qaybtii hadda gabagabada soo gaaray waa maasiin dadkan soo wacay waxaan wili waa idin furan yahay telefoonka ilaa 5 daqiiqo kale waa soo wici kartaan qofku telefoonka u soo gali wayn SMS noo soo diri karaa oo ka faa'iideysanayo Saciid ayaan rabaa markaa inaan hadalada ugu dambeeyay si maartay dadka ku sii baraarujisid 5 daqiiqo waa mahadsantahay walaal mar labaad aan idinku mahadnaqo horumarkana gaarteen media waa aalad umada laga hay karo looga sheegi karo waxa dantooda iyo mustaqbalkooda ah واديكم هنقيا هرمركا قارتين وحنا رجينا إلى هيرودين سيبركي هذا وهال ساعة إني نقطة 24 hours إن شاء الله مستقبل كدو sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ku dhiirigelinayaa xanuunka iyo dhibta ku dhacay ummadeena wax sahlan ma sida kaliya laga bixi karaana waa in qof walba uu mas'uuliyad saaro qof kasta oo inagana kamid ah waagi hore ummadu waxay laan jireen safiiro matala wadankaas inaga hadda qof kasta oo ina kamid ah safiir waxaan leeyahay aan noqono dad caan ku ah hawlkar akhlaaq wanaagsan hufnaan shaqo aynu ka baxano nidaamka ku tiirsanaanta cayrta qof kasta oo ina kamid ah waa resource noloshiisa la soo bixi kara ummadda meel gaarsiin kara telefoon kana isku dayna ana qaabilno ya halo halo السلام عليكم بوق حقي لي كرا إلا بري لقى بلابو هدي إلى هاد مصلاة ظهورك إلا عشاء وحلاقيه ليا مسجد كويا الرينج بي جاركيس عادي سنتر كويا السنتر كرينج بي كان صومالي ده اوكي انا هدي نسوق عن اما نلسو حريران تليفون كان كاغا تيغا waxaan soo gudbin doonaa telefoon kaaga labada bari aad joogto مساعد كان كلي
هدي مارتي دتك كهاجين حتى waxaan siin karnaa u fududeyn karnaa Xuseen oo mas'uulka ah sayidka maalti Soomaalida Sheekh Xuseen ayaa telefoonkiisa u qori karaa dadweynaha ma laga yaabaa inaa mar labaad noogu imaato halkan haddii ilaahayd ma waayo qorshaaga ku jirta hadda buug carwadan buugta oo dhacday waxay qorsheynayaan ragga walaalaheena inay ka dhigaan mid soo noqnoqota sanad walba waxaan rajeynayaa in sanadka dambe ay kasii weynaan doonto intaanan hilmaamin waxaa iyana ammaan mudan urur dhalinyaro oo ka jira Sweden waxaan rajeynayaa inuu magaciisu SSUF oo kamid ahaa dadkii ka qayb qaatay u guntaday hawl badan u qabtay si u horgasho mashruucan buugta waxaan xusuusnahay in la dhaho Axmed Xasan iyo Caato oo dhowrkii habeenaan joognay aan rajeynay inaanu chief iyo joog bowdiinay aad bay mahadsan yihiin soo dhaweynteedii iyo service-ka noo qabteen aadna u rabay in mashruucan uu horumaro marka waa ku soo laaban doonaa insha Allah Sweden sanadka dambe hadii la hadmo iyo sanooyin dambe far badan ba marka buugan ganacsiga kuma xirna leedahay haddaan ku soo koobno maartay xigmadaada ka faa'iideysanay qofka inuu wax yar haysto laakiin inuu hayo fikradii in lacagta muhiim ah waxa baysa qofka determination in marka hore ay ka go'an tahay inuu ganacsi sameeyo talabada ku xigta waa inuu qofku qiimeyn isku sameeyo oo ogaado muxuu ku fiican yahay muxuu ku xun yahay aqoontiisa xirfadiisa markaas ayuu wuxuu u baahan yahay in skillkiisa uu sare u qaado aqoontiisa uu sare u qaado markaas ayuu qofku wuxuu u baahan yahay inuu horumariyo naftiisa oo horumariyo aqoontiisa markaas waxa imaan doonta hadii ay beedmo in qofku uu helo oo awood u yeesho qaabab kala duwan oo ku heli karo fikrad ganacsi markuu fikradda helana insha Allah waxa awood u heli doona inuu fikradda horumariyo barnaamijka waxaan jecelnahay inaan maartay soo gabagabeeno qaybtii gabagabadan soo gaaray marka oysiiskan ku celinaya hadda telefoonka hadda wixii ka dambeeyna ma soo wici kartaan laakiin SMS aan soo diri kartaan annagaan u gudbin doono Saciid dadkana kullee dadkana soo wacay oo mahad celinayna Saciid aadan kugu mahad celinayna ugu dambeyntii yaa salaamaysaa TV waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha reer Stockholm waxaan si gaar ah u salaamayaa nimaan adeer u ahay oo aan arkin 25 sano oo aan habeen hore kula kulmay Stockholm oo la dhaho Sheekh Abdulqaadir Sheekh Maxamed oo Jaamac ninkaas aan salaamayaa ama santahay marnaba dadweynaha ka daawanay halkan aad baan kugu mahadinaynaa cid barnaamijka uu sheegay hore kugu sheegay أبنا كنالك هم سيديسا أو www /qoreysa Stockholm web tv-ga elburne.com jawhar.com hiran.com tv horseed iyo Somali Star dadka wadanka ku cusub oo hadda yimi waxaan u qabanaynaa avocatoas Rashid ayaa ka mas'uula xafiiska wuxuu ku yaalaa tenista alle fotofira ka faa'iideystaan leenahay dadweynaha waa 30 bisha 5 galabnimo October 30 bisha سهادنا أن مرت مرة لبعض كعلنا مرحوم كده أنتي تعسيه لو غامضونا مالنت أحدا وحي فاين أقدومي عربي سبتي أيام مرتي شيء دونا تعسيه كلا هالك كدرنا هدانا بعض Somali Star TV يو TV هرسات ونرسو قد بي مرحوم مدة ليرهدو أي هالك كشيء دونا مرحوم مدة ليرهدو عاشو محمود فارح أو كجوريوتي أرجعوا أيام مرتي وقت تعسييننا reer xaashi xirsi maxamed iyo reer maxamuud faarax ayaan taas u direynaa eheladooda oo kala joogo Canada Mareykan Holland Soomaaliya iyo Somaliland ayaan halka uga tacsiinayna samari iimaan inuu ka siiyo ilaahay jannadana ka waraabiyo marxuumada Caasho Maxamuud Faarax ayaan leenahay samari iimaan eheladii iyo qaraabadii ka gooriyeen samari iimaan inuu ilaahay ka siiyo eedana jannadii fardooso barnaamijku waa soo gabagabeynayna Somali Star TV sabtiga Mr. Sabriye Galaal iyo TV horseed nama soo wici kartaan kama jawaabi karo telefoonkan system is locked haydo shakala qoqobane tanta qiil wayda
قادر اللوميسان قرشه مرقانك قادر اللوميسان يبي كذا قلبي قرشه مرقانك قادر اللوميسان قرشه مرقانك قادر اللوميسان يبي كذا قلبي حداد كلا قبوينتو قبيالا دينا وقانتاي حداد كلا قبوينتو قبيالا دينا وقانتاي فالقويس كيني سوهرا أحكم مقبورا حداد كلا قبوينتو قبيالا دينا وقانتاي حداد كلا قبوينتو قبيالا دينا وقانتا فالقويس كيني سوهرا أحكم مقبورا فالقويس كيني سوهرا أحكم مقبورا waxaa ka daawanaysan Somali Star TV maanta maalinta afarta galabnimo waxaan la joogaa laba fanaan oo qaali ah oo fanka Soomaaliyeed qaali ku ah hadda waxa dhageysanaysan La Foole iyo Cali Ukun La Foole heeskan aad qiimaha wala jireecada dadku ku beertay bal faaliyer ka bixi heeskan runtii waa hees la xuriyay kadib dagaaladii Soomaaliya ka dhacay waxa sameeyay nin abwaan la dhigi jiray Maxamed Sheekh Cabdikariin Durno وهيس اللي هذا معناها الصوماليين كلا بحبحذي أو كلا بحذ قبيلة استقالية لليه معناها هدي أتكلم قبيل انتهي أو قبيلة ذو وعنت معناها وقبيل كون أكسين هاي بل هدي الإسلايو قوس كينو سوها راح حكومة قبورة إلا ضد صومها رايه مركا سيلة توهيس هذا قيم بدن مسكح كل دواتا فربضن لا كل انتباهي كسو